wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka xisbul xaakimka kulmiye maxamed kaahin oo ay weeliyaan qaar ka mid ah golaha wasiirada Somaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley. Jeedada socdaalka gudoomiye ku-xigeenka ayaa ahayd qalab isboorti oo kooxaha kala duwan ee ku tartamaya tartanka koobka Ramadaanta ee maalmihii u dambeeyay ka socday garoonka kubadda cagta ee Timcadda Stadium. xafladii qalabkan lagula kala wareegaya ayaa waxay u dhacday sida tan. waxa maanta inoo jooga munaasabad weyn inoo keenay xisbul xaakimka kulmiye oo ugu tala galay in uu kala qayb qaato bisha Ramadaan ee barakeysan dhalinyarada reer Gabiley una qaybiyaan grace iyo agabkii ciyaaraha oo ay ku ciyaari lahaayeen 12 kooxood oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee gobolka Gabiley. waan ka gudoomaynaa xisbiga hadiyada qaaliga inoo keeneen waanaynu ugu mahadnaqaynaa waxaanay taniina tusaysaa lixashaclada iyo taageerada mar walba uu hayo xisbul xaakimka dadweynaha reer Gabiley inoo sida xisbul xaakimka kulmiye oo ku suntan xisbigii waxqabadka iyo dhiirigelinta dhalinyarada. gabagabadii waxaa halkaas isna ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbul xaakimka kulmiye. salaan kadib dhalinyarada anigu maanta laba xabdood ma qabanaya dhalinyaroy waxa maanta loo heleeyaa waa idinka aad iyo aad baan idinku hambaleynaynaa. waxaan leenahay markaa cayaaraha la hormariyo waxaan idinkula dardaarmayaa cayaaraha ha laga ilaaliyo waxaa la yidhaahda qabiil. sidiisaba qabiilku waa cudur dilaaya oo bulshada dila wuxuu ka dila mooyaane waxba uma kordhiyo. waxyaalahaynu doonayna inaynu kaga saarna ciyaartooyda ka mida gobolka waan ku hambalyaynaynaa in maxaanku idhaahdaa ay Somaliland kow ka yihiin in cayaarta garsoorayaasha cayaarta hayaan inay earphone-kii maxaanku idhaahdaa cayaarta ku hayaan. waxaan kaloo rajaynaynaa xanaan cusub oo ciyaareed kaa iminka Somaliland idinka u hor bilaabay xanaan cusub oo ciyaareedna reer Gabiley inay keenaan oo dabadeedna koobka tartanka gobollada ay qaadaan.